waxaan u maleynayaa safar gaaban baan ku baxnay safarkaasoo ahaa ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynihii lixaad ee loo doorto tan iyo intii la dhisay Puntland inuu madaxweyne ka noqdo Saciid Cabdullaahi Deni oo aan odhan karo waxay ahayd munaasabad muujinaysay reer Puntland mas-uuliyadda iyo xilkasnimada iyo meesha ay Soomaaliya kaga yaalaan ay u ahayd saldhig Soomaaliyada cusub marka laga hadlayo iyo nidaamkan federaalka ah sida isbedeladooda u dhacayeen iyo sida dowladdaas abuuristeeda iyo isbedelkeeda iyo horumarkeeda intuba uu dhacay. waxaan odhan karaa waxay ahayd munaasabad kulmisay dhammaan qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta Soomaaliya. waxay taasi keentay fursaddaasi oo odayaashii dhaqanka iyo hooyooyinkii iyo qof waliba uu noo imanayo lahaa qof waliba yaan lagu kala tegin waxaa la isu sheego in la wada fadhiisto o la yidhaha war maxaa talaa ma wada hadli karaa wax ma isweydiin karaa taa macnaheedu wuxuu noqday in la wada hadli karo waxna la isweydiin karo oo macnuu yahay cidna uma maqna ceello uma qodna inaga inoo taallaa intaasoo mas-uuliyiin oo joogto Soomaaliya dee wixii khalad ay ilduufaan waa wax beri la isweydiinayo. waxay noqotay markaa in la wada hadli karo gogol la isugu yimaado la wada hadlo cabashooyinka jiray la isu soo gudbiyey horey la isugu soo gudbiyey laga jawaabo waxaana ka soo baxay waxay noqotay ballanta aada maqasheen in Garoowe la isugu yimaado bisha Maarso 20-keeda oo macnaheedu uu yahay in laga wada hadlo wixii la kala tabanayey khaladaadka jiray waxaa la kala tirsanayey iyo wixii horey loogu gudbiyo guddiga ka tirsanaa aqalka sanadka ee baarlamaanka oo ay hor yaaleen cabashooyin cidda wax laga tabanaya dowladda federaalka ee ahayd iyadaa laga rabaa inay intaa ka horeysa la timaado wax isbeddel oo muuqanaya oo ka beddelan dhaqankii shalay yaalay iyo wixii la kala tabanayay waa iyadaa waalida iyadaa mas-uuliyaddu saaran tahay wax laga tabanaya iyaday ahayd waan sugaynaa markaa muddadaas. waxaan horta maanta ka tacsiyeynayaa qaraxi ka dhacay magaalada Muqdisho Shabeelle oo dad abri'aa oo masaakiina makhaayad iyo kaalin shidaal iyo qarax lagu sameeyey laakiin waxaa ayaan daraa maalin walba ma tacsi baynu ku jiraynaa. tacsidu waxay u baahan tahay ficil in la sameeyo oo tallaabo la qaado. waxaan u baahannahay tacsi un yaanaan ku jirin in ficil lala yimaado oo waa dad nala mida ooliba naga liitay aan la dagaalano oon u tagno. taas waxaan odhanayaa dowladdu tacsida faraha badan aan iska dayno oon howlgalno. waxaa aada looga shanqadhiyaa Axmed Madoobe dagaal buu galay wuxuuna rabaa doorashada marar badan horena waan ka hadlay in doorashada la dagaal baa lagu jiraa lama geli karo. waxaan rabaa inaan idiin sheego annagoo dagaalka ku jiro ilaahuma meesha ugu dambeysa la jiro iyo electionka Jubbaland u dhacayo haddii ilaahay yidhaahdo la codeynayaa cidda kusoo baxda ee mas-uuliyadda qaadanaysaa dagaalka iyo iskuma xidhna doorashadu.